fadeexad la yaab leh oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay dhagaha faraha geliyeen ayaa ka dhacday dalka Malaysia. Amiiro Qurux oo ah gabadhan sawirkeedu idiin muuqdo oo haysata wiil iyo saygeeda ayaa isku dhacay, waxayna arrintaasi noqotay mid baraha bulshada si weyn u qabsata kadib markii Amiina Qurux ay ninkeeda si xoog ah ugu amartay inuu bixiyo wiilkiisa lacagta biilka, isagoo sheegay inuu bixinayo $200 bil walba, balse Amiiro ayaa diiday arrintaas, waxayna sheegtay in wiilkeeda uusan $200 u qalmin in la siiyo. Haddaba arrintaas oo dadka Soomaaliyeed si aad ula yaabeen ayaa waxay haysataa baraha bulshada sida YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat iyo guud ahaan WhatsApp-ka oo ay aaladaha dadka ku xiriiraan. Arrintan ayaa waxay tahay mid fadeexad ah, sumcad dil ku ah wiilka iyo qoyska. Waxay dadka Soomaaliyeed si aad ula yaaban yihiin arrintan. Waxaa afka furatay hooyada dhashay Amiiro Qurux oo sheegtay in gabadheeda si weyn loo bahdilay. Haddaba maxayna leedahay hooyada dhashay Amiiro Qurux? Xaggay wax ka qaldan yihiin? Ma waxaa qaldan Amiiro mase saygeedii hore? Maxaa la gudboon haddii sayga biilkiisa cunuga uu bixin waayo? Maxay tahay waajibka saaran aabbaha? Barnaamijka ayaan ku fiirin doonaa si aan talo wanaagsan u siino, adunkuna aad taladaas mid lamid aad u soo jeedisaan ood qaybta commentiga aad ku dhiibtaan. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe saaro, muuqaalkana sii faafi si uu dad Soomaaliyeed u gaaraan talana u siiyaan qoyskan iyo ilmaha mustaqbalkooda lagu ciyaarayo, maadaama waxyaalaha la qorayo yihiin kuwa halis ku ah ilmaha yararka mustaqbalkooda. Bal hooyada dhashay Amiiro Qurux oo ilmadu ka qubanayso daayiri doonaa si aan u ogaano bal arrintu meesha ay ka qaldan tahay iyo waxa laysku hayo labada qoys. Arrintaas ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka. Ku soo dhawaada muuqaalka hooyada dhashay Amiiro Qurux oo ilmada ceshan weyse. laakiin marna ma ka fikirteen gabadha yarta quruxda badan leh nolosheeda wiil intay kusoo kordhisay dadnimo lacagteeda iyo nafteeda intay ka qabatay talaalka wiilka ka fikiraysa kirada wiilka iyo noloshu ku noolaan lahaa qol kaligeed kiraysata Malaysia sharmuuta loogu daray markay coratay wiil alla nin Soomaaliya goormaana abaal marinaysa wallaahi waa iska ooy maanta ma u ooynin waxa ku dhacay waxaan ka ooy ayadoo taa sanad ka hor martay waa nimankii ragga ahaa youtuberada ah intay meel soo fariistaan sida yani kaan nin ma dhihi karo maxamed biskudaa la ii qaatay at least isaga he apologize of his qalad ninka naagta qaba I don't want to mention his name. He's an idiot. He said like Amiiro wax eeba maadan samaynin Amiiro Quruxey wax eeba maadan samaynin bil iso kordhi un baad tiri laakiin I don't fucking understand if I'm bad and lacala because ahmaal shaydaan adaba taalo. Halkaas joogto Amiiro iyo saygeedu maxay tahay sababta ay muuqaalada iyo erayadan mustaqbalka saamaynta ku yeelanaya wiilkooda ay isku marinayaan baraha bulshada ayagoo heli karay xal kale oo ay Soomaalidu wax ku xallisato sida in faamilka iyo qoyska ay ka dhasheen ay arrinta dhaxgalaan, waayo waa dad Soomaaliyeed oo ma ahna ajnabi, waayo bari wiilkan waxa god ku dhacay mustaqbalkiisa ayadoo ninkasina ay Amiiro Qurux ku eedeysay inuu wiilkeedaba ninkaasi xaaraan kaga dhalay ama ninkaasba ay ku sheegtay inuu cunugu wecel yahay amaba aysan mustaqbalkiisa iyo nolosha aabihiisba uga sheekayn doonin, waxayna god weyn ku riday mustaqbalka wiilkeeda saamayna ku yeelan kara. Waa arrin aad looga xumaado waxyaalaha ka socda baraha bulshada. Haddii aan nahay bahda Glangal News waxaan talo u siinaynaa inay joojiyaan waxyaalahaas iyo waxa la midka ah. Adiguna hoos ayaad nugu soo gudbi kartaa. Fadlan daawada muuqaalka share dheh, YouTube-keena subscribe saaro, waad ku mahadsan tahay daawashadaada iyo sida wanaagsan oo noogu taxan tihiin. mahadsanidin.